asalaamu calaykum soo dhowaada dhammaan macallimiinta sharafta leh halkan waxaan kusoo duubayaa cashir ku saabsan hababka kala duwan ee ardayda ay wax ku bartaan iyo hababka kala duwan ee ardayda wax loo baro some common student learning styles qaababka kala duwan ee ardaydu markaasi ay wax ku bartaan qaar ka mid a hababkaas qaababka ardayda wax ku bartaan waxaa ka mid ah audio learners waxaa jirta arday la yidhaha audio learners they learn by hearing waxay wax ku bartaan ardaydaanu maqal inay maqlaan ayay macluumaad ku qaban karayaan sidoo kale waxaa jirta arday la yidhaaho visual learners they learn by seeing waxay wax ku bartaan inay wixii arkaan itus bay ku bartaan sidoo kale waxaa jirta arday nooc la yidhaahdo kinesthetic learners they learn by doing waxay wax ku bartaan wixii inay sameeyaan iyadoo qaabka arday wax ku bartaan ay sidaa u kala duwan tahay oo saddexdan qaybood iyo ka badan bay yihiin ayaa haddana waxaan ka hadlaynaa teaching styles hababka wax loo baro ardayda guud ahaan hababka waxbarista ardayda waxaa loo qaybshaa laba qaybood oo kale ah teacher centered iyo student centered ama learner centered teacher centeredku waa hab waxbariseed oo macalinka uu control ka hayo marka habbaristu ay tahay teacher centered methodska ama styleska qaabka wax loo baro waxaa ka mid a in la qaato lecturing method habka khudbad jeedinta ama demonstrating method habka macluumaad soo bandhigista haddii habbaristu ay tahay student centered habka wax loo baro styleska methodska wax lagu baro waxaa ka mid a facilitating method habka fududeynta oo macalinka wuxuu noqonaya facilitator delegated method habka waajib bixintana macallin wuxuu noqon delegator mid waajibaad dare kadib ardayda ka sugan inay wixii soo sameeyaan marka lecturing method haddii aad fiiriso lecturing methodka wuxuu ku fiican yahay markaad arday fara badan wax barayso ama contents fara badan rabta inaad waqti kooban kusoo koobto demonstrating methodku asna waa teacher centered laakiin waa it's more open to student involvement wuxuu u furan yahay ardayda inay ka qayb qaataan su-aalo weydiin baa jira sidoo kale sometimes waxaa jira waxyaaba la arki karayo sida slides iyo presentation waxyaaba la sameynayaa jira in demonstrating methodka sida classwork exercises laakiin lecturingku waa one way communication from teacher to student facilitating method marka student centered ka hadlayso ardayda ayaa badanaa shaqada qabanaya macallinku waa hubinayaa bis inuu wax kasta ay u saxeen ardaygu delegating methodna waa qaab ardaygu ardayda group u shaqeynaya group learning oo kale weeyaan waxaa jira marka habarista teacher centered iyo student centered marka la isku dhafo qaab la dhigaa hybridku marka waa mixed of student centered and teacher centered balance weeyaan aada u mahadsantihiin qaab kasta waad sii baari kartaa iyo wax uu ku fiican yahay